sheekadan ilaabi maayo haweenada ka mid ah waxa igu dhacay wax cajiib ah oo weligaana arkin inta aan noolaa. Haweenkaas waxay ahayd 6 saac haweenimo waxaan ku soo dahay xaafadda ayeeday. Xilli dambe oo haween ayay ahayd. Inta aan wadada socday ayaan waxaan la kulmay oday waayeel ah oo meel fadhiya. Kadibna cidna ma aysan la fadhin. Cabaar inta aan gadaashiisa istaagay ayaan waxaan isdhahay bal eeg xaaladiisa. Kadibna waxaan garwaaqsaday in uu yahay qof aan caafimaad qabin. Waxaan isku day in aan caawiyo, kadibna dhinacyadeyda ayaan fiiriyay, cidna ma aysan joogin. Ilaah waxaan ka baryay in haweenka wax dhib uusan i tusin. Haweennimadkii waan taxadaray, dhinacyadeyda oo idil ayaan iska fiirfiirinay. Odaygan waxaan islahaa caawi, laakiin ma garan karin luqadda uu ku hadlayo. Cabaar markii aan ka sii socday ayaan waxaan dareemay in gadaashii la soo socdo. Waxaan isku dayay in aan dib u eego odaygii, kadibna sidiisa la mid ah ayuu u hadlayay. kadibna waxaan isku dayay in hortiisa aan istaago si aan u arko odayga, laakiin timo badan ayuu lahaa. Malaha wuxuu u ekaa nin waalan oo kale. Wejigiisa xataa waxaa qariyay tintiisa. Cabaar inta aan fiiriyay wuuna hadlayay. waxaan isku dayay in aan wejigiisa taabto, laakiin waan ka baqay oo waxaan arkay wax cabsi ah. Kadibna si dhaqsi leh ayaan ugu soo cararay. Wuxuu ahaa qof juudaaliye ah. Odayga hadduu i cuni